بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan idin la wadaagaynaa warmurtiyeed ay soo saartay dawladda Puntland xubinta ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya. dawladda Puntland iyo shacabkeedu waxay muddo dheer hormuud ka ahaayeen sidii loo heli lahaa hanaanka dawladnimo oo ku dhisan wada tashi wax wada lahaansho iyo nidaam federaal ah oo heshiis lagu yahay sidoo kalena uu qeexay axdi qarameedkii shirweynihii Impegati ee Kenya sanadkii 2004 iyo shirarkii ay ka soo baxeen heshiisyadii Garowe 1 iyo Garowe 2 ee December 24 2011 iyo February 18 2012 ayna ku ansixiyeen magaalada Muqdisho ergadan 825 xubnood oo ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed bishii August 2012 kaasi oo lagu meelmariyay dastuurka ku meelgaarka ah ee maanta heshiiska lagu wada yahay. sida uu dhigayo dastuurka ku meelgaarka ah qodobkiisa koowaad Soomaaliya waxay qaadatay nidaamka federaalka ah dimuqraadi ah kuna dhisan nidaamka xisbiyada badan mana jiri karo daraf keligii wax ka bedeli kara arintaasi. dawladda Puntland waxay marar badan ka hadashay baahida loo qabo dhameystirka dastuurka ku meelgaarka ah si taasi loo gaarana in ay muhiim tahay in marka hore heshiis siyaasi ah laga gaaro qodobada hortiminta u leh dhameystirka dawladiska dalka ee ku xusan qodobada 50aad 51aad 52aad 53aad 54aad iyo qodobka 9aad ee dastuurka ku meelgaarka ah oo ay ka mid yihiin qaybsiga iyo kala xadaynta awoodaha dawliga ah hanaanka cadaaladda iyo qaybsiga khayraadka dalka. dawladda Puntland waxay si adag uga soo horjeedaa ugana digaysaa xaaladaha ka soo cusboonaaday tubta dawlad dhiska hanaanka federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan dadaalada ay madaxda dawladdu ugu jiraan in ay bedelaan dastuurka ku meelgaarka ah si aan Soomaali heshiis ku ahayn meesha looga saaro mabaadiida asaasiga ah iyo qaab dhismeedka dawladnimada ee ku salaysan hanaanka federaalka kaas oo ah mid dib u heshiisiin iyo awood qaybsi ku dhisan. waxa wax lala yaabo ah in bedelka dastuurka ee aan sharci darrada ah loo adeegsado heshiiskii madasha wada tashiga qaran ee NCC iyadoo la wada ogsoon yahay in Puntland aysan qayb ka ahayn. dawladda Puntland waxay nasiib darro weyn u aragtaa in madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ay ka shaqeynayaan in meesha laga saaro dastuurka ku meelgaarka ee federaalka laguna bedelo dastuur cusub oo laga dhex arko masaalix gaar ah khatarna ku ah midnimada iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed sida ku cad cutubka koowaad qodobadiisa koowaad iyo 7aad ee dastuurka ku meelgaarka ah. waxaa la baalmaray dhammaan hanaankii iyo habraacyadii loo mari lahaa dib u eegista iyo dhameystirka dastuurka ku meelgaarka ah ee ku cad cutubka 15aad farqadiisa 132 133 134 ee dastuurka ku meelgaarka ah. baarlamaanka Soomaaliya awood iyo sharciyad midna uma laha samaynta dastuur cusub waxaa dhameystirka u baahan waa qodobo kooban oo kaliya saxna ma aha in dastuurka dalka oo dhan la bedelo murana la geliyo wixii ay ummaddu ku heshiisay. waxa si aan heshiis lagu ahayn oo khilaafsan habraaca dib u eegista dastuurka ku meelgaarka ah loo tirtiray qodobo iyo farqado badan oo qaarkood asaasi yihiin waxa la soo kordhiyay qodobo iyo farqado cusub waxa wax ka bedel weyn lagu sameeyay qodobo iyo farqado kale taas oo dastuurka ka dhigaysa mid cusub oo aan heshiis lagu ahayn khilaafsan hanaanka federaaleynta dib u heshiisiinta iyo awood qaybsiga ku dhisnaa ee Soomaalidu ee heshiiska ku ahayd burburkii kadib. dawladda Puntland waxay u aragtaa in nuxurka dastuurka cusub uu falsafad ahaan ku dhisan yahay talamarorsi khatar ku keeni kara xasiloonida iyo wadajirka dawlad dhiska Soomaaliya. dawladda Puntland waxay muujisay dulqaad waxay dhigtay gogol wada hadal waxa diiday inuu yimaado oo iska indhatiray madaxweynaha Soomaaliya oo laalay gogoshii wada hadalka ee ay soo aqbaleen madaxweynayaashii hore ra'iisul wasaarayaashii hore iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed. dawladda Puntland waxay uga digaysaa madaxweynaha Soomaaliya inuu sii wado dadaalka kaligiis ah ee qorista dastuurka cusub fursadna la siiyo wada hadallo lagu ilaalinayo midnimada dalka iyo badbaadada hanaanka federaalka ah iyo dastuurka ku meelgaarka ah ee heshiiska lagu yahay. dawladda Puntland waxay u cadeynaysaa madaxweynaha Soomaaliya guddoonka iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxweynayaasha dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya
iyo beesha caalamka ee daneeya arrimaha Soomaaliya gaar ahaan wadamada Mareykanka, Britain, Midowga Yurub, Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, Denmark, Sweden, Germany, Switzerland, Norway, Qatar, Turkiya iyo Imaaraadka in haddii la meel mariyo isku dayga samaynta dastuur cusub aysan dawladda Puntland u hogaansami doonin aqoonsana doonin kuna dhaqmi doonin wax ka bedel kasta oo lagu sameeyo dastuurka dalka oo aan heshiis lagu wada ahayn. dawladda Puntland waxay u mahad celinaysaa dadka Soomaaliyeed beesha caalamka iyo cid kasta oo gacan wax ku ool ka geysatay dadaaladii loogu jiray dawlad dhiska Soomaaliya. intaasna waxa ku eg warmurtiyeedka ay caawa soo saartay dawladda Puntland ee xubinta ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya. waa mahadsantiin.